عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu qaadan doonaa chapterka labaad ee maadada xisaabta fasalka laytamaadka ama form 4. chapterkan ama cutubkan wuxuu ka hadli doonaa complex number oo ah tirooyinka kan ama tirooyin dhafan. marka horeysa waxaan isweydiinaynaa muxuu yahay what is complex number. complex number maxaa loo yaqaanaa? chapterka hore ee chapterka koobaad waxaan kusoo qaadanay analytic trigonometric. chapterka marka waxaa ka hadlayaa complex number. complex number haddii aan qeexno waxaa loo yaqaanaa dhahayna within the waxaa lahay real number system. tirooyinka real numberka ee tirooyinka caadiga ah integerska whole numberska kuwaasi haddii loo qoro quadratic equation waa naqaanaa waa tusaale x cubic plus 2x minus 4 is equal to tiraas ama waxaa loo yaqaanaa quadratic equation. marka quadratic equation oo kale oo ah tusaale x square halkan square la dhigi karaa x square plus bx bdin waxay taagan tahay number u taagan tahay oo tusaale waxaan ka dhigi karnaa b waxay taagan tahay number plus c c waxay taagan tahay number haddii la tahay x waa quadratic equation qaacidadeeda. marka has real root waxay leedahay markii loo shaqeeyo qaabkan markii loo shaqeeyo waxay leedahay real root oo macna xididka ka bixi kartaa markii oo la dariyo oo laga shaqeeyo waxay noqon marka waxaa loo qori karaa b square minus 4 ac laakiin haddii b square minus 4 ac ay ka weyn tahay ama ay leeg tahay ever markii oo macnaha real rootka markii laga saarayo waa marka b square-ta laga jaray 4 ac ay ka weyn tahay ama leeg tahay 0 markaas waxay ka bixi kartaa xididka ka bixi kartaa. laakiin haddii b square-tu minus 4 ac ay ka yar tahay ever ma laha root oo xididka ma ka bixi karto oo xididka waxay uga bixi minus 1 bay uga bixi. haddii aan soo qaadano tusaale x square plus 1 is equal 0. x square plus 1 plus 1 is equal 0 baa lahay. x square plus 1 waxay la mid 0 waxaan leeyahay ma laha real value oo qiimo sax ma laha x oo waxay noqoni x square waxaa loo qoray x square marka la shaqeynayo x square plus 1 is equal 0 waxaa loo qori jiray halka la wareejin jiray dhanka calaamada equal ka dhanka midigta loo qori jiray ku dartana waxay isku bedeli jirtay minus marka waxay noqonaya x square waxay la mid tahay minus 1 qaabkaas loo qori. marka haddii loo xididka saar oo meeshan xididka loo qoro dhankan xidid la geliyo dhankan xidid la geliyo waxaa soo bixi xididka iyo square-ka marka x waxay la mid noqoni radical minus 1. marka radical minus 1 qaab loo shaqeeyo oo xididka loo saaro ma laha. radical minus 1 noo soo baxay sooma. marka saan waxaan leeyahay arrintan waxaan qaadanaynaa meeshan oo radical minus 1 tan waxaan bedelaynaa i aan maanta bedelaynaa oo waxaan u xalin karnaa oo shaqeyn karnaa dhibaataan jirta inaan isticmaalo complex number train law. marka radical minus 1 haddii aragno waxaan bedelaynaa i baan bedelaynaa i marka waxay tahay arki doonaa. marka saan u xalin arrintan waxaan dhahaynaa i square waxay la mid tahay minus 1 sidaa darteed waxay noqon marka i square markay minus 1 noqoto i waxay noqon minus 1 marka sidaa darteed waxaa loo yaqaanaa arrintan imaginary number marka xt aan soo helnay oo radical minus 1 tahay waxay noqonay plus or minus i meeshii marka kan xt markii radical minus 1 tahay waxaan oo shaqeynaynaa qaab ah plus or minus i qaabkaas aan shaqeynaa. marka waxaa loo yaqaanaa idan imaginary number oo mid-awaal ah ayaa loo yaqaanaa. haddii aan soo qaadno tusaale kale ah radical minus 4 ayaan haysanaa marka waxaan noqoni radical minus 4 waxaan u shaqeyn karnaa inaan dhahno radical minus 4 waxay ka timaaday minus 1 oo lagu dhuftay 4 kadib waxaan dhahaynaa u kala qaad xididka waxay noqon radical minus 1 oo lagu dhuftay radical kale 4
kadib xididka waxaa ka bixi afarta ka bixi marka waxay noqoni radical minus 1 oo lagu dhuftay 2 kadib 2 soo hormari marka waxay noqoni 2 oo lagu dhuftay radical minus 1 waxaan soo ogaanay aan ku heshiinay inaan u bedelano i aan bedelno marka waxay noqoni 2i sababtoo ah radical minus 1 xididka kama baxayso marka imaginary number ayaan isticmaalaynaa oo loo yaqaano complex number marka waxay noqoni jawaabta 2i bay noqoni marka waxaa leeyahay an imaginary number is the square root of negative number imaginary numberka lagu sheegay waa xidid laba jibaarka oo ah negative number negative ama number minus wata ayaa waxaa loo yaqaanaa imaginary number marka waxaa leeyahay marka qaacida guud waxaa lahaa complex number waxaa lahaa waa is any number of the form waa number kasta oo loo qoro qaabka oo ah x plus y i tiro kasta oo loo qoro waxaa loo yaqaanaa complex number oo x waxay u taagan tahay number y waxay u taagan tahay number marka x haddaan u qaadano 2 plus 3i ayaa dhihi kartaa waxaa loo yaqaanaa qaab kasta loo qoro waxaa loo yaqaanaa complex number ayaa loo yaqaanaa waa number kasta oo loo qoro x plus y ayaa waxaa loo yaqaanaa complex number x number u taagan tahay oo laba u qaadanay y waxaan u qaadanay 3 tusaale waxaa u qaadan kartaa 4 oo lagu daray 5i marka tiro kasta oo qaab kasta loo qoro ayaa waxaa loo yaqaanaa complex number ayaa loo yaqaanaa halka marka x iyo y marka waxay u taagan x marka waxay u taagan tahay real party x tan waxay u taagan tahay complex number waxaa loo qeybin karaa laba qeyb laba x iyo y dan laba qiimo kala duwan bay leedahay x oo qeybta hore ah waxaa loo yaqaanaa real party waa qeybta tirada caadiga oo ay ma wato qeybta waxaa loo yaqaanaa real party ayaa loo yaqaanaa oo qeybtaasi marka mar waliba xarafka ay ma wato qeybta laakiin ayadana waxaa loo yaqaanaa imaginary number waa qeybta numberka oo malawaalka ah oo ka imaaday radical minus 1 ka imaaday marka tan marka waxaa loo yaqaanaa imaginary number ayaa loo yaqaanaa x marka waxaan dhahnay x oo qeybta hore x marka waxaan dhahnay waxay ku taagan tahay number kasta oo hore oo hadda tuwan waxa waaye waa real party qeybtan dambe oo 3i dana waxay noqoni imaginary party noqoni marka y dan waxay u taagan tahay imaginary party u taagan tahay marka waxaa la both x iyo y da x iyo y oo labada tiraba oo 2 iyo 3 tusaale markaas waa inay ka mid noqdaan belongs are real numberska oo integerska whole numberska kuwaas waa inay ka mid noqdaan oo inay x iyo y markasta waa inay oo integer ahata ama whole number ahata ama natural number ahata waa x iyo y da marka si loo qoro calaamad gooni ma leedahay complex numberka oo tirooyinka kale ay kala duwan tahay waxay leedahay waxaa loo qoraa we use example c oo isticmaalna complex number marka waxaa loo isticmaalaa calaamada c ayaa loo isticmaalaa oo calaamadiisa loo yaqaano ama lagu garto oo tirooyinka kala duwan tahay waxaa waaye xarafka c si aad u muujiso dhammaan ururada complex number waxaa loo qaataa marka c loo qaataa marka tusaale waxaa lahay c oo taagan complex number z belongs z taasoo z ah inay la mid tahay x plus y i x iyo y na maxaa dhahnay markaas waa inay ka mid ahaataa real number macnaha tirooyinka xarfahan waxay u taagan yihiin number marka labada qaabkaas loo qoraa marka complex number oo marka la qorayo tirooyinka complex number ama setka ama ururada complex number marka la qorayo qaabkaas loo qoraa sidii marka waxay u taagan tahay complex number ay u taagan tahay y iyo x iyo y na waa inay markasta ay ka mid noqdaan tirooyinka real numberka arta la soo gaabiyay real numberska ay loo soo gaabiyay oo integerska whole numberska natural numberska ayaa loo soo gaabiyay qaab kale xaraf kale oo loo isticmaalo ma jiraa ama loo soo gaabiyay complex number badanaa waxaa loo isticmaalaa xarafka z ayaa loo isticmaalaa complex number marka lasoo gaabinayo ama xarafka z baa loo isticmaalaa marka waxaan markasta badanaa waxaan isticmaalaa xarafka z saan u muujisano complex number ama tirooyinka kan ayaa tusaale haddaan soo qaadano z hadda waxay u taagan tahay meesha c u bedeli kartaa z waa isticmaali kartaa marka z waxay la mid tahay x plus y i mar z waa isticmaali kartaa marna waxaa loo isticmaalaa c marka c badan waxaa loo isticmaalaa markii la sameynayo ama la qorayo ururada complex number z-na waxaa loo isticmaalaa complex number caadi ah marka x iyo y na markasta waa inay ka mid ahaataa real numbers waa inay ka mid ahaataa oo tirooyinka caadiga ah waa inay ka mid ahaataa
real party assumption maxay tahay marka real party waxa la the real party of z is the x number waxaa loo qoraa marka qaybtan oo ah ee hadda assumption z waxay la mid tahay x plus y ay samano ahayn marka qaybtan oo x ta waxaa hore usoo sheegnay inay tahay real party marka waxaa la the real party of z real party ama qaybta tirada caadiga ah oo z waa is the number of x waa xarafka x oo markaas u taagan number marka waxaa loo qoraa markii la qorayo waxaa loo qoraa real party oo r e loo soo gaabiyey of z waxaa kusoo sheegnay inay tahay complex number calaamada loo qaato marka waxaa dhahay real party of z waxay la mid tahay x haddii hadda lambar loo bedelo meeshan waxaa tusaale z waxay la mid tahay 3 plus y-na u bedelno 4 i oo loo real party soo saar waxaa qori real party r iyo soo gaabini kadib waxaa dhahay real party of z oo complex number u taagan waxay la mid tahanaysaa qaybta hore real party 3 qaabkaas u qori imaginary party ayadana waxaa sida u qori qaybta marka ayadana imaginary party waa qaybta y marka waxaa dhahay ayadana waxaa qoraya qaabkan qoraya waxaa dhahay im la soo gaabiyaa waxaa imaginary party of z hadii oo waxay la mid tahay y marka imaginary party of z marka qorayso ma qorayso xarafka ay maracsinaysid laakiin tirada bes aa qoraysaa tusaale ayada waxaa ka horeeya somaha afarta la qoraya laakiin 4 ay ma qoraysid haddii aad kan u qorno number ahaan waxay noqoni imaginary party of z waxay la mid tahay 4 qori qaybta waxaa real party qaybtana waa imaginary party waxaa loo qoraa im of z waxay la mid tahay y waxay u taagan tahay number ay u taagan tahay marka waxaa lahay every complex number has two components complex number kasta waxay leedahay laba qayb oo ah real party oo ah the ordinary number of x qaybta hore ayaa waxaa loo yaqaanaa real party qaybta dambena waxaa loo yaqaanaa coefficient of i horgalaha aydan soo sheegnay waxaa loo yaqaanaa ayadana imaginary party loo yaqaanaa markii complex number marka la rabo oo shardi ah in labada qayb ay ka koobnaato real party iyo imaginary party